waxa muddooyinkii u dambeeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ka daayay roobka guga waxaana muuqaalkii sidoo kale jawiga guud ee magaalada Burco ay isu bedelay biyo fadhiisina qashinka lagu qubo haddaba maanta waxa wareysi dhinacyo badan taabanayay si telefishinka caalamiga Soomaaliya Cable Faarax Ali Dalmar oo kamid ah wasaaradda caafimaadka gaar ahaan waaxda faya dhawrka waxaana noo sheegay waxa uu qorsheysan ka wasaaradahan haddaba isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa kamid ah hadaladiisii sida tan oo qorsheysan waa su'aal u fiican waxa haddaan qorshe la lahayn oo balan lahayn oo shaxan lahayn inagu waaxda caafimaadka maadaama nahay faya dhawrka gobolka Togdheer waxa noo qorsheysan siyaabo badan waan ka hortagnaa meel kasta oo biyo fadhiisan waan ka hortagnaa wanaga hadda sheegayna la kaloriin baan ku darnaa ku ridnaa meesha ama nuurada ku shubnaa ama waan aasna oo shacabkana way nacaawiyaan nala aasan shacabkana wanaga leeday iska aasan inta badan marka waan ka hortagnaa oo wacyigelin badan waan ka siinaa baaq udiray shacabka gobolka Togdheer qaybihiisa kala duwan waa xilli roobaadkii waa run waxaan doonaynaa in wacyigelin aad u ballaaran u gudbino badana madax faya dhawrku waxa uu badan yahay waa wacyigelin waa kortagay ka tabatag laakiin waxaan ugu doonaynaa wacyigelin in ay iska ilaaliyaan xilliyada roobka qashinka iyo biyaha ay isdhex dhigayaan ama ay meelahan bulacadaha ama wadooyinka fadhiistaan biyaha fadhiisto inay iska ilaaliyaan maalin waxaan sameynay goobo badan oo magaalada bartankeedii baan tagnay kaloriin baan ku ridnay biyaha wasakhaysan ama biyihii hore meesha ku jira ha ahaadaan ama kuwii kadamba ka dib ha ahaadaan nuurada baa meel ku shubnay meel kaloriin baan ku shubnay in badan waa la aasay shacabkana waxaan aad u faraynaa inay inta baaqiga iska aasaan يعني gacmo wadajir wax ku qabtaan intooda badan iska aasan inkastoo ay dawladda hoose ay lahayd barnaamijkaasi oo tuulkii gacanta ku hayaan inay ka aasaan ahayd waajib ahayd shaqadoodina ahayd laakiin hadii ay haleeli waayeen ama ay ka buuxin kari waayeen dadku waxaan aad iyo aad u interest garaynaa magaalada bartankeeda haday tahay iyo xaafadaha haday tahay inay iska aasaan biyaha qurmay ee fadhiistay ee xanuunka ka dhici kara ama ka dhalan kara badana biyaha haday ku jiraan muddo week ku jiraan ay cagtawna ku badan tahay qashinkana ku badan yahay xanuunka ka dhalan kara marka aad iyo aad waxaan ugu sheegaynaa shacabka ugu sheegaynaa ama fariinta ugu diranaa inay iska ilaaliyaan ama ay ka hortagaan ama ay xilliyada qashinka hatta waxa jirto aan aragnay guriyaha hortooda qashin la dhigto oo intuu ka soo qaado qofkii ay guriga hortiisa dhiganaya kabacdi roobkii baa ku daayay xanuunkina halkaas ku dhalanaya marka fadlan waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa in ay naga iska ilaaliyaan oo ay ka hortagaan oo ay digtoonid dheeraad yeeshaan xilliyada roobaadka lagu jiro isku soo wada duubo dawladda hoose ee degmada Burco ayaa ku fashilantay gabi ahaanba inay wax ka qabato biyo fadhiisinada iyo sidoo kale qashinka Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Soomaaliya Cable Burco